munaasabaddan ballaaran ay isugu yimaadeen odayaasha waxgaradka dhalinyarada qurba jooga beesha Bohod oo ka mid ah beelaha deegaanka gobolka Sanaag ayaa daarnad isla markaasina lagu shaacinayay calaamasaarka suldaanka guud ee beesha Bohod Suldaan Faarax Ducaale Cali oo ka mid noqon doona baahda dhaqanka gobolka Sanaag. Munaasabaddan oo sidoo kale ka soo qayb galeen cuqaal waxgarad waayeel qaar ka mid ah beelaha deegaanka gobolka Sanaag. ugu horreyn waxa halkaasi ka hadlay waxgaradka waayeelka dhalinyarada qurba jooga beesha soo xushay suldaanka cusub Suldaan Faarax Ducaale Cali. halkan waxaynu isugu nimid maanta shaacinta suldaanka guud Bohod suldaanka nabadda Faarax Ducaale Cali inagoo runtii u baahan ummadda ay u baahan tahay madax hagta oo wadada toosan ku hagta oo khayrka iyo xaqa ku hagta oo diinta islaamka ku hagta oo nabadgelyada ku hagta waa boos meesha ka banaana weeyaan loona baahnaa suldaankana waxaanu leenahay ilaahay isagana ha ku asturo xilka loo dhiibay ummaddu hadday hesho madax toosan oo wanaagsan hadday hesho way hagaagtaa ummaddu meesha ay ka nimataa waa madax hadday ummaddu ka noolaato manjahana way ka hagaagtaa marka ujeedadeenu maaha wax kale waxa weeye inaynu helo shaqsigiina hagi lahaay khayrkeena ugu hagi lahaay goob meesha wanaagsan ugu hagi lahaay nabadayna ugu hagi lahaay ummadda aslaaxin lahaay nabadana inuu hadda cilmiin laga alkumay daadejin lahaay runtii sidii ay barigoor ahaan jirtay ku soo noqon lahayd baynu doonayna intaynu doonayna waa intaa waana la shaqaynaynaa waana taageeraynaa xildhibaan Khadar Xuseen Cabdullaahi halkan waxaan isugu nimid xaflad ballaaran oo lagu shaacinayo suldaanka guud ee beesha Bohod Suldaan Faarax Ducaale Cali Ciid waxaan ummadda Soomaaliland iyo Soomaalidaba afka Soomaaliga ku hadashaan u sheegaynaa inaanu maanta haddaan nahay beesha Bohod isla garanay inaanu shaacino Suldaan Faarax Ducaale Cali Ciid oo noqon doona suldaanka guud ee beesha Bohod halkan ka cadeynaynaa inaanu haddaanu nahay xildhibaanada waayeelka cuqaasha iyo waxgaradka beesha Bohod baanu isla garanay inaanu ka dhigano suldaanka guud ee Bohod Suldaan Faarax Ducaale Cali Ciid oo lagu caleemasaari doono degmada Ceelafweyn bisha 10 suldaanka maanta ku dhashay Ceelafweyn sida loo sheegay hore leedku sheegay waa Faarax Ducaale Cali Ciid wuxuu ku yimi doonistii dadka loo baahday reerku iyo dadku markay arkeen inay u baahan yihiin isbedel taladooda ku saxayaan wixii ka xumaaday ku hagaajinayaan waxa mahadsan raggii iyo dhalinyaradii ka soo bilowday Yurub iyo Ameerika raggii dhulka joogayna horeba waxay isu weydiinayeen inay soo saaraan suldaan markii la isu yimid waxa la go'aansaday ninkan maanta halka fadhiya kan goobtan ujeedadeeda iyo hindiskeedu waxa weeye inaan ku shaacino suldaankii guud ee beesha Bohod Suldaan Faarax Ducaale Cali Ciid oo noqon doona suldaankii guud ee beesha Bohod arintaas oo ay dhalisay danaha beesha iyo baahi loo baahday in suldaan la sameeyo suldaan nabadeedna la sameeyo waxaan leeyahay awal budda suldaanahay maanta waa shaacin suldaan baabo ahaa maanta waa shaacinta aanu gelinay shaacinta aanu gelinay miidiyaha runtii waa kalsooni weyn baan ku qabnaa waanu soo xulay dhinac walba waa ka soo eegnay waa suldaan aanu ku kalsoonayna deegaanada iyo dadka iyo beesha Bohod ba ku qaban karo ku shaacinayna suldaanka guud ee beesha Bohod Suldaan Faarax Ducaale suldaanku waa suldaan xul oo beeshu isla soo xushay waxaanu ku dooranay diin waxaanu ku dooranay haladayg waxaanu ku dooranay daacadnimo waxaanu ku dooranay dad isku wad halkan waxaynu ku shaacinaynaa suldaan beesha Bohod ama beesha deegaanka oo dhan oo isagoo laga magacaabayo beesha Bohod Faarax Ducaale Cali Ciid waxaan odaga u soo xulay inuu nabadda wax ka tari karo beesha dhexdeeda wax ka tari karo deegaanka wax ka qaban karo waa hawl aanu saar raggii hore awalba nabadda ku suuntanaa ka shaqayn jiray maalkiisa iyo naftiisa ku lumin jiray inaad ku soo biirto minaad wax ka sii badan qabato mooyee inaad ka hoosayn waa gudida Bohod ahna gudida nabadgelyo degmada Ceelafweyn waxaan halkan ka shaacinayaa suldaan Faarax Ducaale Cali
oo aan u dooranno ilaamintiisa suldaan ku filan Somalilan ama gobolka Sanaag ama Somalilan oo dhan nin wadi kara nabadgelyo iyo islaax ku wadi kara inuu ahaa hadeerna yahay. geestooda waxa iyaguna halkaasi ka hadlay isla markaasina sheegay inay la qaateen suldaanka cusub ee beesha Bohod waxgaradka cuqaasha qaar ka mid ah beelaha dega gobolka Sanaag. suldaanka wada nin shiraban bay keenaan saan ugu nimi asaas waxay keenaan nin shiraban suldaanku mar hadii reerku uu keeno de suldaan reerka uu ma noqday dadka dhan buu noqdaa waanu soo dhaweynaynaa waxaanuna yeedhamada aan loo yeedhaan ku soo ajiibnay reerku wuxuu keenaa nin shiraban sidaas aanu hadii allaba yiraahdo aanu ugu nimi saasaan u soo dhaweynaynaa xafladda tan halkan lagu qabanayo ee aanu ka soo qayb galnay ee loogu yeedhay ee lagu shaacinayo Faarax Ducaale Cali oo ku suntan eesa geela halbayga galaba la yiri nabadgelyada waa soo dhaweynay waa garab taagan waa hambalyeynay shaacintiisana waa maqlaysaa waqtigaa weey hambalyo shaacinta suldaanka guud ee beesha Bohod suldaan Faarax Ducaale Cali Ciid waan hambalyeynayaa marka hore waana soo dhaweynaynaa beeshii soo dooratayna waan la qaadanay marka Faarax aan doonayaan kala dardaarmo hadii Ilaahay ka dhigo laba qodob horta madax dhaqameed badan baynu lahayn madax dhaqameed ka badankoodu waxay ku cadaan horta siyaasiyiin waxaan aad iyo aad kagala dardaarmay inaad noqon suldaan siyaasi aad noqoto suldaan dhaqameed madax dhaqameed oo beerta lagu calaamad saaray aad fadhido run ahaantii aad iyo aad ayaan ugu hambalyeynayaa beesha soo xushay ninka la Faarax Maxamed Suuta telefishinka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Telephone